طبعا qaybta labaad wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda caalamka dhan qodobada wararka dhinaca diblomaasiyadda waa October 2023 mar kale barnaamijkan falanqaynta wararka dhinaca diblomaasiyadda hogaamiyaasha G20 ayaa iyaguna ku urursan magaalada Rome ee xarunta dalkaasi Italia 20 dal ee adduunka ugu dhaqaalaha badan madaxdooda ayaa halkaasi tagay iyadoo madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden kan Turkiga Erdogan, Japan, ra'iisul wasaarihiisa Germany, the UK, France, Italia, Canada, Argentina, Australia, Brazil, China, Indonesia, India, Russia, Mexico, South Korea, South Africa, Saudi Arabia iyo waliba midowga Yurub ay hogaamiyaashooda halkaas joogaan. Sidoo kalena waxaa ku sugan madax kale oo casuumaad u diray ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga oo ay kamid yihiin madaxweynayaasha dalka Azerbaijan, kan Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo, Rwanda, madaxweynahooda Philippines, New Zealand iyo Netherlands iyo waliba Singapore. Hogaamiyaashan ayaa dhamaantood waxay ka wada hadlayaan qadiyado waaweyn oo dunida ku soo kordhay oo kamid tahay waxaa dhibaatooyinka xooggan uu keenay xanuunka faafaha daran ee COVID-19 iyo sidoo kale dhaqaalaha adduunka leecleecaya dhibaatooyinka ka dhashay adeega dhinaca talaalka ee dunida la kala xasaystay iyo waliba sida aan waliba dalalka qaarkood wali loo gaarsiin talaalka xanuunka COVID-19 taasoo ka dhiganaya in dad badan wali ay u leenayaan xanuunka 75% waxaa kaloo laga wada hadlayaa si dhaqaalaha adduunka loo kordhi lahaa iyo in sidoo kale laga hortago ayaa la cashuurta xad-dhaafka iyo nidaamka dhinaca electronic ammaansan oo la isticmaalo dhinaca ganacsi isdhexgalka iyo waliba wax isleeg oo xuquuq si kastaba ha noqotee waxaa loo xal tagi doonaa marka uu shirku gabagaboobo magaalada Glasgow ee Scotland halkaas oo laga wada hadli doono iyadoo cimilada adduunka oo lagu dari doono qorshayaasha heerka sare ee tabintale halkan nagala socotaan wararkii wacala dhinaca diblomaasiyadda dunida daawashana qiimaha leh caalamka oo dhan xogii ugu dambeeyay gaan weeyaan daawashana qiimaha leh ee Kenya, Ethiopia, Burundi, South Sudan iyo Djibouti waxay ka mid noqdeen dalal lagu tilmaamay in ay yihiin dalal qaamoobay oo halis weyn ugu jira in lahaanshaha kaabayaasha dhaqaalaha ee dalalkaasi noqdaan kuwa halis badan laga soo bilaabo sanadkii 2008 ilaa 2017 dalka Kenya ayaa lagu tilmaamay inuu ahaa dal limanayay oo gabi ahaanba hoos ugu dhiiqoobayay ama dhaamayay marka la eego dhinaca ayaa waana dalka ugu daran ayaa leeyahay ku yaala wadamada Geeska Afrika ee waxa la yiri arintaasi ku dhibaataysan sida uu sheegay bankiga la yiraahdo African Development Bank oo soo saaray barnaamijka loo yaqaan the East African Regional Economic Outlook ee 2021ka oo ah markaas dib eegista dhinaca heer dhaqaalaha heer goboleed ee Geeska Afrika ayaa Kenya u doortay inay tahay dal qaameyntiisa ee dhinaca ganacsiga markay noqoto dhinaca deynta markay noqoto aad u sii xumaanay ayadoo sheegtay in dalalka Ethiopia, Uganda iyo Tanzania ay sidoo kale ilaa sanadkii 2010 ka soo daba qaateen oo ay kamid ahaayeen dalalka deymaha faraha badan galay bankiga dhexe dalka Kenya the Central Bank of Kenya ayaa la sheegay in lacagta u taala gudaha ay hoos u dhacday 9.2% marka la fiiriyo ayaa la yiri ilaa iyo bishii June 2000 taasoo ka dhigan ayaa la yiri in dalkaasi uu aad u sii baaba'ayay wixii intaas ka dambeeyay waxaana lagu tilmaamay in hogaamiyaasha dalka aysan la imaanin qorshayaal ay kaga hortagayaan arrimaha deymaha balaayiin dollar ayaa dalka Shiinuhu ku leeyahay dalkaasi isla markaana waxa laga baqayaa in kaabayaasha dhaqaalaha ee dalkaasi khatar galaan sidoo kale waxa lagu tilmaamay wadamada Soomaaliya, Suudaan iyo Eritrea kuwa ayagu hore u qaamaysnaa laakiin Soomaaliya ayaa la sheegay inay ka soo kabanayso dhinaca dhaqaalaha isla markaana deyn cafintii loo sameeyay iyo horukaca dhinaca dhaqaalaha iyo maalgashiga dalka walow ay dhibaato ku hayso arrimaha ammaanka iyo kala qaybsanaanta xasilooni darrada gudaha Soomaaliya haddana waa yidiidire aad u xooggan ay leedahay dalalka Uganda, Rwanda, Comoros ayaa iyaga waxa lagu tilmaamay kuwa iyagu ku jira marxalad dhexe markay noqoto in ay aad hoos ugu dhacday dhinaca deynta lagu sii leeyahay oo marka dambaysa ay ka gudbayaan heerkaasi dhanka kalena waxaa la sheegay in khubarada dalka Kenya looga baahan yahay inay ka fakaraan sidii isku badbaadi lahaayeen mustaqbalka dhow maadaama xaalkoodu uu wash yahay waa lagu sheegay warbixinta hagaag magaaladii dhibaatada xoogganeed ka socotay ee la isku haystay dagaalka aad ka culus degmada la yiraahdo Marib gobolka la yiraahdo dalka Yemen ayaa la sheegay in degmadii dagaalka culus uu ka soconayay bilooyinka faraha badan ugu dambeyntii ku dhacday gacanta kooxda la baxday Ansaar Allah la baxday Xuuthiyiinta arrintaas waxay timid kadib markii qabaa'ilka halkaas kula dagaalamayay degmada Jabal Murad ay iskaga baxeen difaaciyadan ay baneeyeen kuwaasoo taageero dhinaca hubka iyo sanada ka heliyay boqortooyada Saudi Arabia sida uu sheegay afayeenka kooxdaasi gaashaanle sare afayeenka loo yaqaan Yahya Sariic ee kooxda Xuuthiyiinta waxa uu sheegay in dagaalka ka dhacay Al-Jubba iyo Jabal Murad degmooyinkaasi ay ahaayeen kuwa ugu dambeyntii sahlay ayuu yiri in qabiilka leeda Murad ay iskaga baxeen halkaasi oo ahaa qabaa'ilka ugu awoodda badan ee dalka Yemen qaybtaasi ka ciyaara si kastaba
ha noqotee waxa ay sheegeen inay haatan ay u jahaysteen degmooyinka ugu dambeeya iyagoo tagi doona deegaanadaas isla markaana si salmiya kula wareegi doona dowladda Saudi Arabia ayaa barihii ugu dambeeyay oo dhan waxay doonaysay in halkaasi ay hab kale ay ku wajahdo dalka Canada waxaa markii ugu horeysay la ogolaaday in baaritaan lagu sameeyo dil loo geystay nin maskaxda ka xanuunsanayay oo Soomaali ahaa oo xagga markaas dhimirka ahaa sanadkii 2015 sida ay sheegayaan booliiskaasi sanadkii 2015 ayaa Cabdiraxmaan Xasan oo Soomaali ah isla markaana qabay dhibaato ama naafaka ah dhinaca maskaxda waxa uu ku dhintay gacanta ciidamada waaxda Soogalootiga ee socdaalka dalkaasi Ontario iyadoo la sheegay in uu doonayay inuu naftiisa uu kala soo baxsado dhibaatooyinkii ugu dambeeyay dalka Soomaaliya ka dhacay Cabdiraxmaan Ibrahim Xasan wuxuu ku dhintay isbitaalka bishii Luulyo 11 2015 kadib markii laga soo saaray xarunta dhinaca markaasi dib u haynta iyo baxnaanada ee dhexe ee Ontario ee loo yaqaano Lindsay Chell sidaasi waxaa sheegay warbaahinta dalkaasi ee loo yaqaan wargeyska leeyahay Canada Border waaxda la yiraahdo Canada Border Service Agency oo ah waaxda maamusha dhinaca xuduudaha ee dalkaasi Canada si kastaba ha noqotee qaar kamid qoysaska ayaa ilaa waagaas waxay raadinayeen inay xog dheeraad helaan senator kale oo Mopin Chaffer ayaa waxa uu goorsi horeysay sheegay isagoo ka hadlayay in arintaasi ay ahayd arin aad u fool xun soo ku tilmaamay ninkaas inuu ahaa wiilkii ugu dambeeyay qoys hore uga soo cararay waddanka dagaalku aaveeyay ee Soomaaliya haatan waxa la doonayaa in la helo habka ay dhibaatadaas ugu dhacday iyo in xog dheeraad laga sameeyo ayaa sidii loogu geystay dhibkaasi Cabdiraxmaan oo qoyskiisu ay raadinayaan cadaalad halka kala socotaan daawashana qiimaha wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda ururka naxda ee dalka Tunisia wuxuu eedeeyay habka madaxweynaha dalkaasi uu maamulayo talada dalkaasi ururka warmutiyad soo saaray ayaa ku eedeeyay madaxweyne Qays Saciid inuu wali iska sii wato inuu kaligii go'aansado qadiyada dalka ku saabsan oo dhan iyagoo ururka xubnaha baarlamaanka ee dalkaasi ay ku tilmaameen in ay dib u dhac aad weyn dalka ku keenayso dimuqraadiyadda horkaciisa iyo arrimo khatar oo madaxweynuhu u horseedayo isagoo mar walba ku celinaya in uu culays saaro waxaha madaxa banaan ee kamid ah xataa garsoorku si uu markaasi uu u sii haysto awoodda dalka uu goor horeba sida ururku eedeeyay konton iyo laba xubnood oo ka tirsan baarlamaanka dalkaasi ayaa sheegay in aysan u dulqaadan doonin in dalka qadiyadiisii gabi ahaanba laga dhigo mid aad fuuxan warbaahinta dalkaasi ayaa la sheegay in la qabqabtay badankoodii gaar ahaan kuwii diiday in madaxweynaha taageera TV-yada iyo warbaahinta Nasta TV Al-Saytuna TV iyo sidoo kale warbaahinta kale Hannibal ayaa dhammaantood afka ciida loo daray isla markaana ay booliisku albaabada isku dhufteen kolkii la sheegay inay arrintaasi tahay kuwa waaweyn oo ay kadib la sheegay arrintaasi ay ka socoto dhaqdhaqaaqyo waaweyn oo dowladda ka dhanaya dacaayad madaxweynaha loo jeedinayay sida ay dowladda ku eedeynayso waay ra'iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson oo ka qaybgalaya shirka G20 ayaa isaguna waxa uu ka hadlay xaaladda sii xumaanaysa cilaaqaad ee u dhaxaysa isaga iyo dalkiisa iyo dalka Faransiiska wuxuu ku tilmaamay in gilgil xoog u weyn ama dhulgariir dhinaca cilaaqaadka labada dal uu soo galay laakiinse wuxuu diiday inuu gabi ahaanba ka garaabo sheegashada dowladda dalkaasi iyo waqtiga loo qabtay dalkiisa ilaa iyo maalinta saalisada ah in ay dowladda UK ka soo jawaabto ama ka soo jawaab celiso in ay tafaasiil ka bixiso arinta dhinaca cishiimada ay ku samaysay waxa loo yaqaano kalluumaysiga iyo waliba kheyraadka ee labada dhinac inkasta oo la sheegayo in dowladda Britain ay kala noqotay laysanskii ama waxa loo yaqaan shatiyadii gaar ahaan kuwa kalluumaysatada doomaha kalluumaysatada Faransiiska oo daraasiin kamid ah ay ka kalluumaysan jireen aag loo yaqaan UK and Jersey biyaha la yiraahdo ayaa haddana dowladda dalkaasi waxa ay soo gaaray digniin kama dambaysi oo ka soo baxay Paris taasoo ka socda London loona sheegayo in haddii aysan maalinta saalisada ka noqon waxna ka bedelin qadiyadaas inay taas ka noqonayaan madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ku celiyay sida uu dalkiisa raalli uga ahayn ficilka uu sameeyay UK waxa ay tusaale u tahay wadan ka baxay qaaradiisa isla markaana isgo'doominaya dhanka kale ra'iisul wasaaraha dalkaasi France ayaa waxa uu sheegay in aysan ogolayn wax ka yar in ay aqbasho dalabkooda London balse ra'iisul wasaaraha dalkaasi Boris Johnson waxa uu yiri arrimahaas oo dhan waxa keenay ayuu yiri ruxutaan lagu yimid oo dhinaca siyaasadda laakiin waxa leeyahay bid anaga Faransiiska waxa naga dhaxeeya wax ka weyn arrinta kalluumaysiga sida daradeed waxaan ka wada hadli karnaa masiibooyinka kale ee adduunka naga soo wajahaya iyo tartamada xooggan iyo cadaadisyada kale iyo loolamada ayuu yiri muhiimka ah asagoo markaasi sheegay inay arrintaasi ay tahay arrin aad iyo aad muhiim u ah inay ka wada hadlaan tan ay ka gudbaan sida uu hadalka u dhigay weeye dabcan daawashana qiimo badan wararka waxa la dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan qodobo warbixino waaweyn xogii ugu dambeeyay dalka Tongan la yiraahdo ayaa waxay ku dhawaaqay in qof wadankii
koowaad ee sheega in qofkii ugu horeeyay xanuunka faafaha daran COVID-19 uu haatan sanadkan 2021 soo gaaro dalkan waa dal ku yaala Pacifica wuxuuna dhacaa dhinaca markaasi waqooyi galbeed ee dalka New Zealand ay u taqaanin waxa ku nool waa dalka Tonga 100,000 oo qof ayaa ku nool qofkii ugu horeeyay xanuunka faafaha daran COVID-19 laga helay sida uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha dalkaasi oo sheegay in laga yaabo in dhulka ugu weyn ama magaalada ugu weyn ee loo yaqaano Tongatapu la geli doono go'doon Pahuvi Tu'umatofa waa madaxweyne wasaaraha dalkaas ayaa saasi sheegay hal qof ayaa kiiska ugu horeeyay la helay wuxuuna sheegay in la arkayay iyadoo oo dadku ay ku yaacay wararku waxay sheegeen in la arkayay iyadoo dadku ay ku yaacayaan goobaha talaalka laga qaato saddex meelood oo hal meel marka loo qaybiyo dadka talaalhay ay hore u qaateen laakiin waxa la sheegay in qofkan laftiisa uu talaala xanuunka faafaha daran soo ritay waxa uu ka digay rasaaruhu in dadkaasi ay u diyaar garoobaan marxalad ka duwan tii ay ku noolaayeen maadaama abid isan ayaga laga sheegin xanuunka faafaha daran dalkaas haleelay qayb 3 daqiiqadeed